maalin wanaagsan saaxiibayaal qodobada wararka ee xilligan aan idiin hayno waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay madaxweynihii Puntland oo go'aankii ugu adkaa oo aan marna laga filayn uga dhawaaqay magaalada Gaalkacyo dani wuxuu shaaciyay inuusan dib dambe ugu tartamayn xilka madaxtinimo ee Puntland arrintan ayaana nabar weyn ka fujisay xubnihii mucaaradka oo ka walaacsanaa in dani dastuurka dib u furo kana saaro qodobadii xadidayay inuu mar kala tartamo waxaan soo gudbinaynaa dani oo xujo waa culus hordhiga mucaaradkii Puntland haddaba go'aankan uu qaatay muxuu ku sababeeyay dani waa tilaabadiisa xigta samaxay tahay halkee ayuu dani u socdaa dani oo xog weyn xalaka shifa ayaan saaxiibayaal idinla wadaagaynaa qodobada kale waxaa ka mid ah ee aad daawo doontaan ciidamadii federaalka ka amar qaadanayay ee carmo ka cararay ayaa waxaa soo gaaray gurmadkii ugu badnaa oo reer miyiga oo waa ka soo jeeda beelaha ay ka soo jeedaan ciidamadaas cali saleebaan iyo ugaar saleebaan waxaan soo gudbinaynaa dhinaca kale halkee ay hadda ku sugan yihiin ciidamadii Puntland ka daba dirta ciidamada xaaladda goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada la isku horfadhiyo iyo gurmadka soo gaaray ciidamadii dawladda ka amar qaadanayay ayaa saaxiibayaal idiin soo gudbinaynaa waxaad kaloo daawo doontaan wararkii ugu dambeeyay doorashada shirguddoonka golaha shacabka Soomaaliya oo maanta la bedelayo ama la dooranayo ninkii bedeli lahaa aadan madoobe waana iska caddahay ninka haddaba soo baxay waa la sii og yahay laakiin xildhibaano badan ayaa diidan arrintan oo mucaarada go'aankoodana shalay ay cadeeyeen haddaba maxay sameyn doonaan xildhibaanada mucaaradku maanta guuxa golaha shacabka ayaa saaxiibayaal idinla wadaagaynaa iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha iyo kuwa kale ayaan idinkugu haynaa warkeena balse ugu horreyn daawade ka aragti dhiiba qodobada in Siciid Cabdullaahi Dani ka tanaasulay oo uu gabi ahaanba ku dhawaaqay si cad inuusan dib dambe ugu tartami doonin xilka madaxtinimo ee Puntland maxay ka dhigan tahay dani go'aankiisa ma ku saxan yahay inkastoo dastuurka Puntland uu ba xadidayo in madaxweynuhu ama qofku laba jeer ka badan uu tartamo danina xilligiisii labaad haduu dhamaanaya sida daraadeed dani Puntland ma u baahan tahay mise waa ay ka maarataa aragtidaada adigu noo reeb go'aanka uu qaata sidoo kula yahay dhinaca kale maanta golaha shacabka Soomaaliya wuxuu yeelanayaa guddoon cusub aadan madoobe waxa bedelaya sida ugu badan 90% ninka halka inay kaga muuqda oo ah wasiir Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac madaxaana furan ninkan inuu hogaamiyo golaha shacabka isagana ma u qalmaa maadaama hay'ad muhiim ay tahay aragtidaada noo reeb fariintan meel dheer gaarsi halkan ku soo biir waa hagaag saaxiibayaal waan idin salaameynaa meel walba oo aad dunida dacaladeeda naga daawanaysaan waxaan ku bilaabaynaa warkeena subaxan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa habeenkii xalay ahaa go'aan marna aan laga filayn uga dhawaaqa magaalada Gaalkacyo isagoo halkaas ka sheegay inuusan mar dambe u tartamayn xilka madaxtinimo ee Puntland laakiin taa cagsigeeda uu qaatay go'aan runtii aad loo hadal hayo Dani ayaa ka hadlay mustaqbalka Puntland isagoo mar kale muujiyay xaalad runtii go'aankan la soo dhaweeyay runtii la leeyahay waa in Xasan Sheekh uu uga dayda Dani tilaabadan iyo go'aankan uu xalay ku dhawaaqay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo xalay khudbad ka jeediyay magaalada Gaalkacyo oo uu dhalinyaro dad u badan kula hadlay ayuu waxa uu ka sheegay ama uu ka hadlay mustaqbalka siyaasadeed ee Puntland iyo qorshihiisa marka uu dhamaado muddaxileedkiisa hadda uu ku joogo Dani ayaa si cad ugu dhawaaqay inuusan mar saddexaad u tartami doonin xilka madaxtinimo ee Puntland isagoo xusay in dastuurka Puntland u ogolaaday 2 jeer oo kaliya isla markaana labadiisii jeer hadda uu dhameysanayo mar saddexaadna uusan sharciyan dastuurka Puntland uusan u ogolaaneyn sida daraadeedna uu sida tartanka uga haraayo Dani wuxuu yiri dastuurku 2 jeer ayuu ii ogolaaday hogaanka Puntland inaan noqdo labadii jeerna waa la ii doortay 2 sano ayaa ii harsan qofka doonaya xilka ha iskeeno doorasho xur ah oo waqtigeeda ku dhacda ayaana la qabanaya waa hadal biyo kama dhibcaana buuq aan lahayn dood aan la gali karin hadiiba uu Dani leeyahay labadayda sano hadii aan dhamayso doorashadana waqtigeedii aan ku qabanaya dib dambe u tartami maayo oo dastuurkii Puntland u hoggaansamaya ninka mucaarada ee raba tartanka soo tartan xuriya xalaal u soo diyaar garow arinta waa hadal aan laga daba hadli karin hadii sidiisa loo fuliyo waayo laakiin madaxweyne Dani ayaa sidoo kale sheegay in xisbiga talada haya ee ka uu yeelan doono musharax u tartama madaxtinimada Puntland isagoo tilmaamay in isaga iyo sidoo kale xisbigiisu ay door ku yeelan doonaan dhismaha hogaanka mustaqbalka xisbiga Dani ee ka ee hadda talada haya waa xukuumadda ka musharax kale ay soo saaranayaan Dani iyo xisbigiisana waa taageerayaan hadalkan Dani ayaa xoojinaya fahamka ah in uusan qorsheynayn
inuu 2029 mar kale ama markii saddexaad Puntland uu hogaamiyo taa oo meesha ka saaraysa walaac muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhex jira mucaaradka Puntland oo ahaa in dani si uu u xalaalaysto inuu mar kale u tartamo madaxtinimada Puntland uu dib u furayo dastuurka Puntland qodobada ku jira ee xadidaya in laba jeer oo kaliya qofku u tartami karo madaxtinimada Puntland يعني meesha laga saaro oo qodobadaaba la bedelo marka dani waa shaaciye waa cadeeyay arinta dastuurkiina lama bedelayo isaguna dib uma tartamaayo loolanka 2029 oo durba muuqda haddii dani uu ku adkaysto go'aanka su'aasha ugu weyn ee siyaasadda Puntland waxay noqonaysaa cidda uu madaxweyne dani iyo sidoo kale xisbigiisa ka u xula doonaan musharaxa ku metelayo doorashada soo socota tani waxay sidoo kale Puntland ka abuuri kartaa loolan siyaasadeed oo cusub maadaama kooxaha siyaasadda ay bilaabi doonaan diyaar garowga doorashada soo socota iyadoo la saadaalinayo in magaca dani uu door weyn waa ku yeelan doono cidda xisbiga xukuumaddu taageerayso yani ka soo baxaya dhinaca kale waxaa si weyn loo hadal hayaa in dani uu mustaqbalka dhow uu u sharaxan yahay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya arrinta waa caddahay dani hore ayuu ugu hungoobay inuu Soomaaliya madaxweyne ka noqdo iyadoo doorashadii uu ku soo baaxay Xasan Sheikh yani meel fiican uu gaaray laakiin gabagabadii waxay ku soo ururtay inuu Xasan Sheikh hadda ay saayaan uu dhisto laakiin mar kale ayuu dani rabaa inuu calafkiisa tijaabiyo oo uu dib ugu laabto loolankii filla Soomaaliya sidaa daraadeed hadalkan gaalkacyo wuxuu soo bandhigayaa laba arrimood oo muhiim ah dani oo ka tanaasulaya tartan saddexaad oo Puntland iyo bilowga tartan cusub oo ku saabsan qofka ka ku meteli doona doorashada soo socota ee Puntland ka dhacaysa iyo sidoo kale dani oo toos markaan boorsooyinkiisa ugu rarta xamar isla markaana raba inuu xilka dawladda federaalka tijaabiyo marka saaxiibayaal dani go'aankaas uu ku dhawaaqay mucaaradkii ayuu xujo culus hordhigay buuq dambaba ma jiraba mucaaradka Puntland hadii la leeyahay uu dani ku leeyahay anigu dib dambe isku ma sharaxayo dastuurkan u hoggaansamaya doorashada waqtigeedii ku dhacaysa wax kale oo laga qayliyo oo mucaaradku ay ka dagaalamaan meesha ma yaalo doorasho u soo diyaar garooba waa xujo uu dani hordhigay habeenkii xalay ahaa xubnaha mucaaradka Puntland haddaba daawada maxay kula tahay dani Puntland ma u baahan tahay ma ka maarataa xilka madaxtinimo ee Soomaaliya dani ma u qalmaa haddii uu tago ma ku guuleysan karaa dhammaan adiga aragtidaada wixii ku aadan qaybta hoose ee faalada noogu reeb saaxiib adigoo ku qoraya qaybta hoose ee faalada wixii aragti ah dhinaca kale saaxiibayaal haddii aynu fiirinana ciidamadii ka amar qaadanayay dawladda Soomaaliya ee carmo ka cararay laba habeen ka hor isla markaana hadda qaybo ka mid ah gobolka bari ku sugan ayaa waxa la leeyahay waxa ay heleen gurmad aad u xoogan oo uga imaanaya reer miyiga ku beelaha ah ciidamada ay ka soo jeedaan beelahan ee Cali Saleebaan iyo sidoo kale Ugaar Saleebaan ayaa waxa hadda la leeyahay waxa ay habeenkii xalay ahaa ilaa ay saacadihii la soo dhaafay gurmad ka heleen reer miyi hubaysan iyadoo ay xoojiyeen ciidamadaas oo gaarayay ilaa iyo 240 askari iyo sidoo kale dhowr cabdibile ciidamadan oo carmo ka cararay saldhigna halka ku lahaa ayaa waxa ay ka carareen ama ay joogaan duleedka meelo u dhow ka raaxo iyadoo ciidamadii ugu badnaa ee Puntland la daba dhigay labada dhinac ayaana hadda isoo fadhiya iyadoo laga cabsi qabo in xabadu ay qaraxdo goor kasta inkastoo waana arrinta lagu dhaxwado haddaba qodobo hore loogu heshiiyay oo ciidamadan inta aan yani carmo aysan ka caranin qodobo lagu heshiiyaa jiray qodobada lagu heshiiyay xilliga waxaa ka mid ah waa Puntland iyo ciidamadan hogaankooda waa wada hadleen laakiin wada hadaladii ayaa dib ka fashilmay marka qodobadii lagu heshiiyay waxaa ka mid ahaa oo ay aqbaleen ciidamada waxay aqbaleen inay ka tanaasulaan aragtidii dawladda federaalka iyo wada shaqayntii kala dhaxaysay oo aysan wax dambe dawladda kala macaamileen waa dawladda dhexe ee Soomaaliya waxay sidoo kale ogolaadeen in taliye cusub ay Puntland u soo magacawdo waa taliye cusub in loo soo magacaabo iyagoo ku dooday inay xaq u leeyihiin in loola macaamilo sida taliyaha waa ciidanka danab ee Puntland taliye cusub waa loo soo magacaabi karaa laakiin ciidan beeleedana ay yiraahdeen ciidamadaas sida daraadeed waa in loola macaamilaa sida ciidamada danab ee Puntland saddex waxay ogolaadeen yani waxa wali jira qodobo aan hore يعني usocod laga sameyn waana gelida xerada tababarka iyo wareejinta hubka dawladda ayaa dhankeeda wali ku adkeysanayso qodobada ay u aragto inay muhiimad gaar ah u leedahay oo ay isku dhafka ciidamada Puntland sida daraadeed hadda qodobada doodu ka taagan tahay waxay tahay in ciidamadan xerooyin lagu xereeyo Puntland ay maamusho yani hubkana ay dhigaan ciidamadan marka waxay leeyihiin taliye cusub noo soo magacaaba noo daaya maamulkeena oo sidii ciidanka danab oo kale aan noqono marka arrintu meeshaas ay maraysaa
gurmaday heleen ciidamadan oo hadda beerihii qaraabada la ahaa oo reer miyiga ahaa ayaa ciidamo hubeysan ama rag hubeysan usoo diray waana la xoojiyay ciidamada marka wada hadallaa ku dhex socda laakiin arrintan oo waana ku dhex socota marka saacadaha soo socda ayaan ogaa doonaa mustaqbalka ciidamadan halka uu ku dambeeyo ugu dambeyntii saaxiibayaal golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maanta marxalad xasaasiya ayaa ka taagan guddoon cusub la dooranayaa aadan madoobe bedelkiisii ayaa la rabaa in maanta la doorto oo golaha shacabka hoggaan cusub uu yeelanaya boqolkiiba 99.9 waa iska caddahay oo Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac wasiirkii dekedaha ayaa maanta ku soo baxaya doorashadan oo iska musharax maqaar saara ama musharax malxiisa uu kula tartami doono maadaama cid la loolamaysa aysan jirin rag la loolami lahaana qaarna tanaasuleen qaarna shahaadadii musharaxnimo loo diiday ninkan oo filla Soomaaliya wadata ayaa kursigan tagaya laakiin xildhibaanadii mucaaradka ayaa si weyn u diidan doorashada halkan ka dhacaysa marka koobaad waxay leeyihiin baarlamaan mandate ay sameesha maba joogaba marka doorasho meesha ka dhacaysa maba jirtaba oo sharci meesha laguma joogo iyadoo ay sharci la'aan tahay ayaa haddana musharaxiintii rabay loo sii kala eexdo qaarna shahaadadii loo diiday qaarna loo xiray kuraastii marka saaxiibayaal halkan maanta doorashada ka dhacayso sida ay tahay sida wax u dhacaan haddii xildhibaanada mucaaradku ay tagaan isla markaana ay meeshan buu ka furaan waa isla arki doonaa meeshan tagayna waa idinkaga soo warrami doonaa daawade qodobada ka aragti dhiibadani iyo go'aanka uu qaatay doorashada halkan ka dhacaysa iyo ninka la xulanayo ama yani ninka la soo magacaabayo muxuu kula yahay noo reeb aragtidaada fariintan meel dheer gaarsii halkan ku soo bil